الرحمن الرحيم كلنتو wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kasta naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo lagu soo dhaweynayo fanaanada weyn Nimco Yaasiin Caraale Nimco ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Royal aad baan u dhawahay waan ku salaamayaa ciid mubaarak Ramadaan Kariim aad baad u mahadsantahay Nimco xalay ayaad ka soo degtay madaarka Dubai bandhig faneed ayaad ka dhigaysaa maalinta ciidda haddii Ilaahay ka raali noqdo dalkan istaga Imaaraadka Carabta ee magaaladan aan hadda joogno ee Shaariqa maxaad ugu tala gashay jamhuurka adiga ku daneeya ee ku xiiseynaya ama heesahaaga jecel bal maxaad ugu tala gashay waliba jaaliyada ku dhaqan dalkan istaga Imaaraadka Carabta ee Soomaalida maxaad u wadaa horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay ciid mubaarak mar labaadkana waxaan leeyahay sanadkiisa Ilaahay bashbash iyo barwaaqo haynugu gaarsiiyo dhamaanteynba waxaan horta leeyahay waxaan sidaa horta say iga barteenba aniga xagga jacaylka hadii goor la xisaabiya waxaan wadaa heeso cusub oo iid ah oo cusubna hore loo qaadin heeso cusub oo kale iguna jacayl say iga barteen bulshadu oo hore loo qaadin oo habeenkaas soo bandhigayo iida iyo kuweygii horeba iyo kuweygii dambe iyo kuweygii dhexe waxaan doonayaa 2002 alifkii barnaamijka halkan aan ku qabtay runtii si fiican baan bulshada habeenkaas kula dhaxnay mafsuud ana waan kala tagnay habeenkan kale waxaan sugayaa habeenkayna ka sii fiicnaato insha Allah soo dhaweyntii ama bil carabi haddaan ku ira istiqbaal xar waxa lagu sameeyay soo dhaweyn aad iyo aad u qiimo badan oo madaarka laga maxaad marka dadkii ku soo dhaweeyay maxaad bal adigu ma filaysay in arinta noocaas ay dhacayso hay waan filayo I like it korkaas inuu ku wada soconay waanan taageeri jiray had iyo goor inkastoo aan xiriir la lahayn oo aan xaggan internetyada xiriirkooda baan aniga aan aqoonba ama waan qanay yani aanan haleelin aan kuba ilaahdo marka waan sugayay inay I like it soo dhaweynayaan waxaan u mahadnaqayaa Cabdi Majiid deeq holan oo iyaguna arinta aan ka seexan hawshoodiina ka soo gutay si fiican igu soo dhaweeyay intii madaarkayga hortimi inta ii imanaysa iyo faaniskayga daan hotel iyaga garanaya kulay kaas adigana ku salaamay Axmedo habeenka waa ila shaqeynaysaa ilaa aad iyo aad waxaa jira fanaaniin ku dhaqan dalkan istaga Imaaraadka Carabta kulli waxaan u maleynayaa arinta noocaas kulli way ka soo qayb galayaan bandhig faneedka leeno waxa tahay fanaanad hobaladii waa barina ku jirtay oo caan oo la wada garanayo oo imikana kuwa hadda soo baxayna la jaan qaadaysa labada dhinacba waa tahay marka bal arinta iyada bal ka warayada horta eriga aad baaban uga helayba wad ku mahadsan tahay ma hadeen labadaba aan u dhaxeeyo sharaf bay tahay waxaad fanaaniinta horta joogto Dubai oo dhan habeenkaas way noo wada imanayaan ya gaar ahaan Maria Nasir Beef Ahmed Saciid deeqo iyadana joogta iyo qaar kale badan waan gartay yaad jeceshahay yanagoo gabagabadii joogna yaad jeceshahay halka ka salaamaysaa caawa waxaan salaamay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa faaniskayga waxaan salaamayaa odagayga iyo caruurtiisa familigiisa oo dhan Saacid adaan ku salaamayaa Royal TV baan salaamayaa Cabdi Majiid deeqa Amaal Aliyo oo yana ma igu soo dhaweysay Dubai si fiican ilaa gurigana joogo hadda deeqa ikulkulinaysa aad baa maasantahay Jamiil okay intaas baan salaamayaa aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa salaamayaa waxa tay wariya tahay heesaaba tahay habeenkaasna waxaan si fiican baan isu baranaynaa hadii la yiraahdo familygayga dhan waan salaamayaa meel kalaale meel dunida ka joogaan oo dhan waan salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay Nimco Sharafay waqtiga qaaliga aadna siisay aad baad ugu mahadsantahay aan ilaaway halka markaan ka baxo waxaan ka dhigay Hargeysa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah haddana waxaan doonayaa inaan ka dhigo jigjiga aniga iyo Nimco degan
ها labada barnaamijna way soo socdaan insha Allah hadii la yiraahdo inaan isla bishan soo socotaa dhexdeeda aan sameeyo halkan waxaan ka dhigayaa iid hadii la yiraahdo wasalaamaya Somaliland madaxweynaha Somaliland Silayo xamroodiisa sirridiisa shaqaalihiisa waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaamayaa madaxweynaha Jigjiga Cabdi waxaan leeyahay guul bashbashiyo barwaaqo ciid mubaarak Ramadan Kareem ay nimca sharaf ay dhigayso ciidka hadii Ilaahay ka raali noqdo oo lagu dhigi doono dalkan Istaga Imaaraadka Carabta ee magaalada Shaariqa fanaaniinta ka soo qayb galaysa ee habeenka garab taagan wax ma nooga sheegi karaysaa adiga والله هرت أحمد وهذا وحكاك الشيء أنا وحقيتها فرحة جونية سئاد وجونية نمع لندن باود جوجني ولنا وحشوا أنا ما وضدين ومركي يجوه ريسورت فرحة تاسكو إيتهاي فنانين تكلوا هالك نقول لنا وحكي من دون فنانين بدن وذا ذي كوكتهاي أحمد بيف مريم ناصر أحمد سليت أبوان قمان يقار كلو بدن أنت يعني أنت فنان وهيستوى الباب ذو فري وينو إيمان كران وحنا إن شاء الله رجينا يا سيد قروح ذا بدن لي أسود دوين مركه ورا شعب بدين نقول لي يدين نقول هايين با I like it group إن لما يستران وفنان دين يضو هبي وقص ليسه أنا هذا أنا إيربورك وذكين هدو إله إدمه aad nimca u mahadsantahay waqtiga qaaliga aad nasiisay annaguna hadaan Royal TV waa ku garab taaganahay waan kula shaqeynaynaa aadna waad u mahadsantahay ana sharaf weyn bay tahay nin wariyaa oo hadana heesaaya ina caawi wareysto thank you very much daawadayaal inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa intaanu dib u kulmi doono waa anigu Axmed Saciid oo idin kaga tagaya nabadgelyo